siyaasi cali khaliif galeydh madaxweynaha maamulka Khartoum State iyo wafdi horkacaya ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Boorama wafdigaasi ay ku weheliyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland iyo musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ahna gudoomiyaha xisbigaasi Engineer Faisal Ali Waraabe soo dhaweynta kadib wafdigu wuxuu u kicitimay jaamacadda Camuud oo kormeer kala duwan ay ku soo mareen kormeerkaasi markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyeenada la hadlay xogayaha gobolka Awdal waxa uu ka dhawaajiyay soo boqday jaamacadda Camuud ma yimin issue siyaasi laakiin kaliya soo boqday jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama oo runtii ma taqaanaay jaamacadda Camuud oo aad iyo aad ugu farxay maanta markuu dhex maray isaga professorka soo soo dhaweynaynaa oo waftiga Faisal Ali Waraabe taqaana Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID kulay la caaw joogi doona odayada qaar bay saaki doonaan hadii Ilaahay qadaro geestiisa isaguna hadalka waxa qaatay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Sleebaan Axmed Guuleed oo warbixiyay ujeedada socdaalka Professor Cali Khaliif Galeydh hogaamiyaha maamulka Khartoum State waxa uu ka dhawaajiyay baan soo dhaweynaa Cali soo dhaweynaa waa iskuulkiisii uu ka bilaabay dugsiga tacliinta sare dugsiga sare ilaa galabtiina la joogo galabtana kulliyadaha caafimaadka ayuu soo booqan intiina halka joogtaa iman kartaa marka intaasaan idin sheegaya iyo inta dambe la socon doontaan caawana magaalada joogaya ma filayaa oo dheelka rays waa lagu cashay doonaa insha Allah si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ee Professor Cali Khaliif Galeydh uu soo gaadho 20 sano ugu dambeeyay magaalada Boorama xarunta oo ah gobolka Awdal iyadoo la filayay in saacadaha soo socda oo Cali Khaliif Galeydh inuu kulamo kala duwan la qaato qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay bulshada ku dhaqan gobolkani Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV magaalada Boorama